waqtigan la joogo nolosheena maalmeed waxay xiriir la leedahay adeegsiga baraha xiriirka bulshada fariimo badan oo aynu ku darno dariiqada SMS-kuna waxa suuragal ah inay xambaarsan yihiin waxyaabo ciyaar iyo dheeldheelka dhisan oo aan nafac u lahayn bulshooyinka taasoo si ballaaran bulshadeena ugu dhex faafi karta marka aad fariin SMS ama sawir u kala dirto waxoogaa dada oo qiyaas ahaan aynu ka soo qaadanno 9 qof fariintaasi waxay sii gaari kartaa dad intaa ka badan tusaale ahaan marka qofku 9 ruux uu kala diro fariintiisa SMS-ka oo dabeeto 3 ka mid ah oo midkoodba u sii gudbiyo fariinta 3 qof oo kale kuwaasina ay tirooyin noocaas u sii gudbiyaan ugu dambeynta marka 10 jeer la isu sii diro fariimahaasi waxay ugu dambeynta natiijadu gaari doontaa 8,000 oo ruux laakiin waa inaynu maskaxda ku haynaa in fariintaasi ka timi hal qof oo kaliya oo haddii ay khayr lahayd oo adduunka iyo aakhiro midkood ama labadoodaba anfac u leedahay bulshada khayrkeedii waxa uu noqonayaa qofka haddii ay dhibaato u leedahay bulshadeennana dhibkeedu waxa uu dib ugu soo noqon doonaa qofkaasi